الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كسر أرضية 10 امتحانها كسب سنة أديكسي كالكولاتركا sidii calculator sida loo adeegsado waxaan halkaan ku soo gudbino qaabka loo xaliyo waxaan ku soo leeyahay equationska video hore waxaan ku soo duubnay sida loo xaliyo simultaneous equation by calculator haddana waxaan rabnaa inaan galno qaabka loo xaliyo quadratic equation qaabka loo xaliyo calculator aan fiirino meesha waxaan nooga muuqdaa quadratic equation fara badan ayaa la soo ururiyay waa kana tusaale m square minus 5m minus 14 equals 0 waa quadratic equation kan waa quadratic equation waxaan dhan waa quadratic maadaama square ku yahay hadii ba variable meesha ku jiro oo wato square wuxuu noqonayaa quadratic equation ayaa loo yaqaanaa okay marka waxaan sameeynaa qaar kamid ah calculator ku soo saarinaa marka hadda quadratic equation markasta variable ku jiro wuxuu yeelanayaa laba solution ayuu yeelanayaa laba qiimo ayuu yeelanayaa x1 x2 ayaa soo baxay maadaama square hadii cube laga dhigo wuxuu yeelanayaa 3 roots ayuu yeelanayaa ama saddex solution ayuu yeelanayaa marka kan hadda laba solution ayaa laga filaa in soo baxay mid kasta marka m tan laba m maadaama ay tahay m1 iyo m2 ayaa laba qiimo soo kala baxay midaan hadda waxa soo baxda iyadana hal tu maadaama ay soo baxaan waxa laga wadaa iyagana kan la tuwa macna waxa laga yaabaa in isku hal qiimo qaataan oo waxa hal number uu soo wada baxaa laga yaabaa marka okay marka hal number ay hal qiimo ay yeelan kartaa midkan kooda ayaan ku bilaabaynaa marka waxa sameynaysaa mood ayaa dooranaysaa mood marka doorato kadib equation ayaa kasii dooranaysaa number 5 ayaa equation isku jiraan number 5 ayaa dooranaysaa okay quadratic equation waa number 3 waa kaasa number 3 maxaa ku qoray x square plus bx plus c equals 0 formki quadratic equation waa kaasa marka iyada dooran number 3 ayaa ka dooranaysaa number 3 marka doorto waxa gelinaysaa sidii equationski hore baan sameeynay horgalayaasha ay gelinaysaa inta horgala waxa uu ah 1 ayaa dooranaysaa 1 ayaa dhahay kadibna waxa dhahaysaa equal ayaa dhahaysaa okay kadib waxa gelinaysaa -5 ayaa dooranaysaa -5 kadibna equal ayaa dhahaysaa iyadana okay kadibna waxa gelinaysaa -14 kadibna equal ayaa dhahaysaa okay zero ma gelinaysid zero waa isku geey quadratic equation markii la soo xareeyo number constantga zero ay la mid tahay marka zero ma gelinaysid horgalayaasha la qaadanay bas kadib waxa dhahaysaa equal ayaa dhahay maxaa ku soo baxay x1 7 ku soo bixino x2 na waxa laga filaa inuu soo baxdo -2 in ku soo baxay ayaa laga filaa marka maadaama x1 7 ay la mid tahay x kale waxay la mid tahay -2 ay la mid tahay okay equal ayaa marka leeyahay kaas x waxa soo baxday iyadana -2 ayaa soo baxday okay kaas waxaan ku soo saartay halkaas equationkaas kood ayaan xaliyay marka waxaan fiirinaynaa midkaan labaad ayaan fiirinaynaa maadaama x1 iyo x2 isku hal qiimo qaateen ayaan bal iyadana aan fiirino okay iyadana bal aan fiirino okay ac ayaa dhahaysaa hal mar ay ka laabanay waxa gelinaynaa 1 la bida 1 horgalo waa Soomaan 1 hayaa x iyo y waxa variable la qaadaa kuma xirna midkii la rabo la qaadan karaa hadda b meeshaan la isticmaalay meeshaan m ayaa la isticmaalay kan x la isticmaalay ka variable-ka dib ma laha kaas midkaas ay qaadan kartaa waxa hadda marka 1 horgalayaasha la isticmaalayna okay sidoo kale waxaan gelinaynaa -4 minus okay hal mar ka laabano waxaan soo bilowno hadda waa nadiif marka waxaan gelinaynaa -1 ayaan ku bilaabaynaa afwan 1 ayaan ku bilaabaynaa 1 ayaa ugu horay bida horgaleedu waa 1 okay kadibna waxaan gelinaysaa -4 ayaa ugu xiga inta waxa leedahay -4 ayaa dhahaysaa kadib waxa dhahay equal maxaa kugu sii xiga +4 waxa dhahaysaa equal ayaa dhahaysaa okay inta marka haysato hadda waxa ku dhiman inaad taabato waa kaas x meeqay la mid tahay x1 x2 kuma dhig maadaama x labadii x ba hal qiimo isku qaateen marka one solution ay leedahay waa kaas hadda ku celcelido xitaa x2 daas ma dhaafay 2 la ku soo baxay x marka waxay la mid tahay 2 ay la mid tahay kuwan kale waa la mid okay tan fraction ku soo baxa ka waran gelino ayadana aan gelino midaas saddexaad oo fraction ku soo baxa fiirino okay 2 ugu horeyso Soomaan 2 ugu horeydo 2 dooro equal waxa ku wixii -3 dooro equal waxa ku wixii -5 dooro equal okay kadibna waa dhamaatay equal ayaa siilay maxaa ku soo baxday x1 5 of 2 ku soo bixino x2 waxa laga rabaa in ku soo baxdo -1 waxa leeyahay marka iyadana equal -1 ay soo baxdo okay waxaan rabaa inaan hal xabo kan aan rabaa inaan fiirsho culus inaan raadiyo okay tusaale tan oo kale maxaa la sameeynaa hadii mar meeshaan oo kale ay zero la mid ahay waa inaan formkii u qortaa formkii marka zero ay kula mid noqdo waa inaan qortaa waxaan sameeynaa -10 kan gudaha gali wuxuu noqonayaa +10 ayuu noqonayaa equal 0 marka +10 iyo waxa kala go'ay 13 waxa ku soo haray marka saddex ku soo haray marka waxay ku noqonaysaa 2m square -7 -3 equal 0 marka number haduu inta yaalo waa inaan gudaha galidaa numberkaas kale aad ka jartaa equal 0 na aad dhahdaa marka formkaas u qorto formka quadratic equation marka u qorto equal 0 ay noqoto kadib aad gali kartaa calculator markaas hada tan marka calculator galino 2 aan ka bilaabayna okay 2 ayaan ka bilaabayna 2 dheh kadibna waxa tiraahdaa equal -7 dheh equal dheh okay maxaan ugu xigmaysaa -3 sababtoo ah tanka markaan gudaha galiyo ama aan wareejiyo
ama laba dhinac minus 10 aan plus 10 aan ku daro waxay soo bixi doonta 3 ayaa soo baxay markaan ka jaro marka 13 waxa kala go'ay plus 10 kadib 3 ay soo baxay marka 3 minus ay wata ugu had minus 3 ayaa gelinaysa kadib equal ayaa dhahay kadib equal ayaa siilay maxaa ku soo baxay qiimaha koowaad waxaa ku soo baxay 7 plus square root 70/4 ayaa ku soo baxay kadibna equal dan sii dhaw inta iyadoo minus ah qiimaha kale iyadoo minus waa macna minus iyo plus kaliya isku mid waa ka saacadana qiimaha ku soo baxaysa marka qaabkaas ayaa loo geliyaa quadratic equation waxa li kartaa haday doorasho tahay haddii imtixaanka caadi lagu soo inta waa isaga check garay kartaa haddii doorasho tahay waa qolada ka dooran inta gelida calculator marka aad iyo aad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.